muqtar sugayo mala yaabeysa loo kuniyo 16 sanadka soo dhaafay bishiisii saddexaad baan aroos galay ana aroos ka jiray waxa uu leeyahay jiir baan naftii keen guriga aan deganaa islaamtu way carabtay oo waxay aaday qolkii meel gooniye ka fariisatay marka nin saaxiibkii baa la hadlay telefoon kala hadlay waxa ku saaxiib islaamtu ay xanaaqday maxaa sameeyaa wuxuu yiri abwaan baa tahay gabadha heesna u qaaday marka ana hees isku duduwaya hees sameynaya baa gabadhii ordaysa laabtay soo gashay markaas waxa asirtoo yaa soo aygsaday waxay jiirka ay soo aygsaday marka sidaan iyo jiirka miyaa mudan heesta mas'iyada mudan in loo qaado miyana mudan صح iyagu marka hore iga carootay waan soo jiidan waay laakiin saaxiibkii markuu yiri waa xaaskaaga waa dumaashiday hees u qaad markaas ku iman doontaa iyadoo baryana aan ay timid goortii laabtay soo gashayna jiirkii meel musa sii jiray baan arkay marka jiirkii baa la hadlay heesta u qaadayo waa erayadii cilmi daashe laxanka waxa ka soo qaatay hiba nuur hee maxamed duun heesta rooblo rasamalin haysto liraado waxa diidaada ka baxda jiirkii baa la waxaan ku yiri warjiiriyo cham 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 chararam jelbaha meeshuye waxa jooga nabadoon martina jiif kuleede adna jalamadaydiyo jeegida goyso kobabkii jajabise jaliilkay ka yaabo ama joogodkaaga ama jaararkaas qabo jirka waxaan ku yiri jiriyo jelbaha meeshuye waxa jooga nabadoon martina jiif kuleedahay adna jalamadaydiyo jeegida goyso koobabkii jajabisay jiliilkay ka yaabo ama joogodkaaga ama jaararkaas qabo ni waxa aan godkaaga ku jir ama diriskaaga iga tagba ku inuu dilahaas xaafadaha RBS hareeraheeda wayada waxa lagu sheegay kanaaca timid baaliyay kanaacada sida waxa weeyaan dadka qana oo mileegiya sabta kanaacada markay heeska u sameeyay laxankay waxa ka qaatay xildhibaani mooy xaal qaado xildhibaani mooy xaal qaado heesta laxankay ma qaatay marka heesta xildhibaan loo qaadmay waxa loo qaaday waa kanaaca waxaan yiri adiga kaneecoy dhammaan maanku ka tagay reer mudug maskiinaad inta mawku leedahay micidu yaysan ka jabin walaad midhiga qaadayne ereyda waxa weeye adiga kaneecoy dhammaan maanku ka tagay reer mudug maskiinaad inta mawku leedahay micidu yaysan ka jabin walaad midhiga qaadayne doorooyin bal xanaanee ana Muqdisho jooga Muqdisho shaqo u raadsan marka nin cadaan ah wuxuu yiri doorooyin xanaanee doorooyinku waxa ay 72 xabo doorooyinka xanaanee la yiri waan shukaansi ma iska gabar baan shukaansi inta gabadha ku maqnaa fiidkii ba xor ba soo dhacay laba xabo dooraa way wada xorki oo kaar ka dhaway agtaagay xafad waa kaaraan xorka marka xabo dooraa ay cunay baan subaxii tigii oo 72 ninka turjubaanka baan sheegay waxa ku niyo 72 xabo dooraa ma hayaa xabo dooraa meel ay soo qabo wardiriska dooraa ma haystaan isaga maalintii labaad baadana gabadha ii timid waa raacay gabadha hadana xabad kale oo cunay xorki gabadha baan u sheegay maanta ku raacmayo laba xabo diyaarada laga maqan waa diyaar ku sidoo xabib malaha lacag bixinayna kan raac sawa raacay gabadha xorki baan soo batay buu 70kii waa jumlaystay idin ku dhigay marka ana laga rabaa inaan Ingiriis aanika cadaanka aan kula hadlo way turjubaanku ma aamini karo oo wuxuu oranaya meelaha shaqeyladu aadani karo bas ninka cadaanka diyaarku ka soo digay afka motor yar kule wuxuu yiri what's the problem maxay tahay dhibaatada weyn ninka cadaanka anan reemuduga baan wax loo adeegsaday af Ingiriis reemuduga madaxadka loo adeegsaday waxaan ku risaa one horken ana hor macnaheedu baan garanayo one horken yes yiri sana one chicken beef xabo dooraa ka tuuray yiri sana another beef mid kale glay baa yiri sana all the chicken beef wixii dooraha waa dhamaadeen baa who do that yiri yasmiyay sana dhahar what is the horror yiri sana horror is the animal horror waa xawayaan oo muxuu aan ka tirtimid yahay Ingiriiskan waxa hadda fahmi laakiin waxay la mid tahay marka Ingiriis ku hadlaysi inaadan baqin baa rabaa oo macnaha wixii ka soo bixi kara soo tursi
laakiin qof markuu baqayo wuu jarjarayaa halka marka ninka caddaanka asaasaan ku fahansiiyey